lagu soo dhaweynaya waad arkaysaa waa daacigii weynaa xafidullah xasan toob ayaa salaamaya waad arkaysaan culimadii waaweyneed ayaa salaamaysa sheekh xasan alwaajidi waa kan culimadii iyo dhalinyaradii ayaa salaan ka qaadanaya waa sheekha kaliya ee maanta lagu soo dhaweynaya halkan waa Jomo Kenyatta sheekhan oo dad badan ugu faa'iideeya diinta islaamka ayaa maanta lagu soo dhaweynaya Nairobi waad arkaysaa inaba caadi maahan sheekh xasan alwaajidi sheekhi ayaa markan culimadii si salaamaya sheekhan oo taariikh dheer ku leh dadka Soomaaliyeed oo aan la iloobi doonin oo aan la iloobi karin ayaa maanta halkan lagu soo dhaweynaya salaantii ayuu ka qaadanayaa shacabkii sidoo kale culimadii halkan ku sugneen waad arkaysaan haye waa kan sheekhi wuu soconaya sheekh xasan alwaajidi haye wuu socdaa sheekha salaantii ayuu qaadanayaa caadi maahan like sar muuqaalka sii share garay si saaxiibo badan uu u gaaro sheekhan maanta waxa lagu soo dhaweeyay Jomo Kenyatta waad arkaysaan sheekh xasan alwaajidi haye sheekhi waa kan salaantii ayuu wadayaa waa kan meesha maanta lama kala maqna qofna kama maqna waa ka sheekhi waa la soo dhaweeyo waxaan idin leeyahay sheekh xasan alwaajidi welcome to Nairobi bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waxaan ku suganahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa halkan ku soo dhaweynaynaa alqaari sheekh xasan alwaajidi سأوجدين بوابوشي الصومالية كونول مقالة نيروبي ذلك كينيا ما دام وشيخ وسفر كلدون وسو سميي أي وحا سودوين تاسي معموس كله وسميي مسؤولين تأي مدحضة runtii ay culmo-diinka Soomaaliyeed dalkan ugu horeen waxaan u dhiibayaa si uu sheekha iyo culimada kale ay soo dhaweeyaan waxaan la joogay xilibaan Ismaaciil iyo culimadii gudoomiyaha jaaliyada ayaan markaa ku wareejinayaa bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah maanta waxaa farax inoo ah inaan magaaladii caasimadii Nairobi aan ku soo dhaweyno imaamka Sheekh Xasan Alwaajidi alqaari maanta ahada aan meesha ku soo dhaweyno aad ugu faraxsana jaaliyada dhan aniga aan ka ahay chairmankeedii iyo maartay naa'ibka oo chairmanka Sheekh Shariif iyo asxaabta kale dhalinyaradii iyo maartay aan dhalinyaradii gudoomiyaheedii hildhibaanka Ismaaciil iyo dhalinyarada kale meeshan sheekhan ku soo dhaweynay run ahaantii aad aan u faraxsanahay waqti dheer ayaan aan sugaynay alxamdulillah ilaahay nabad waa soo bixiyay haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inaan aan geyno meeshii ma looga talagalay marka insha Allah taala ilaahay subhanahu wa taala ha ka dhigo kulankan kulan khayr badan sallallahu alayhi wa sallam Muhammad alxamdulillah rabbil alamin alxamdulillah salatu wassalamu ala rasuulillah wa ba'd runtii waxaan u soo baxnay inaan soo dhaweyno imaamka guud sheekheena Sheekh Xasan Alwaajidi ahlul quraan ahlullahi wa khaasatu ahlul quraanka in la soo dhaweeyo saf loo galo runtii waa waxa lagu sharafo lagu karaamo annagoo dhan waxaan maanta safkaas ugu jirnaa inaan sheekha soo dhaweyno dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi hadee waxa la yiraahdaa nin gurigiisa kugu marti sooray nin guri dadow ka soorayna nin dhaafay Soomaali bay ahayd annagu inaan ku soo dhaweyno xilbaanada hadaan nahay laakiin marka dal aan dalkeeni ahayn aan ku sii dhaweynana waa ninnimo kala weey aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno sheekh waxaan leenahay soo dhawow hadee dadkaagi iyo dalkaagi labaad baad u timaaday ku soo dhawow Nairobi maadaan la soo koobi karin بعد الحمد لله تبارك وتعالى waxaan leeyahay jamiican idinkan oo maasantihiin waan dhawahay oo noogu weyn yahay gudoomiyaha jaaliyada haddana noogu weyn yahay aydan xildhibaan Ismaaciil oo runtii dawladda Soomaaliya noo matala Allah barakeeye aad baan u faraxsanahay dhalinyarada jamiican iyo gudoomiyaha dhalinyarada kulligiina jamiican intaan kala bixin magacyada waxaan si khaas kale ugu mahadcelinaa Xasan Toob oo runtii khayraalaasi asana wadanka marti ku ah oo haddana soo dhaweynta qayb ka ah jazaahullahu khayran markii sanoo mahadsantiin eedan ka faraxsana
soo dhaweynta Nairobi marbadanka kooyo jiray laakiin tookadan kooyo rasmi ah iyo deegaan rasmi ah insha Allah taala iyo shaqo wacan iyo insha Allah taala intiina nagana dadka iska kaalmay sida khayrka oo taawanu على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان marka digitaan imaasho rasmi ah haddan bay maanta ay bilaabanaysaa insha Allah taala saasan ku bishaarayna inta kale indhen iyo fiirin iyo jadwalkeena inaan ogaado wadankan bay ahayd laakiin hadda insha Allah taala wixii laga filayay oo runtii dadka maskaxda maanka ay ku hayeen inaan hawshii dhaxda ka galno aan bilowno dhawaana insha Allah taala la socon doontiin wajazaakum Allahu khayran wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan macaamiishii Dr. Amiin Samakaar daktarka carruurta waxa ku wargelinaya inuu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo Samakaal Hospital oo ku taala dalcadda Taleex ka soo horjeedka idaacadda Danan xarunta Beeko wixii faahfaahin kala xiriir telefoonka ah iberlixal 7 69 fiiro gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka carruurta waa uu shaqaynayaa weli daktarka